وأنيقو فتحية مقالة بيرميغام تاريخ waxa weeyaan waa maalin Isniina March 8 2021 halkan waxaan doonaa Soomaaliya la wadaago arrin dheer oo soo jiitay mise dhowr sanadood waraaqado aan ka hayo xafiisyo ka soo baxay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya cadeymo musuqmaasuq iyadoo fiidiyoya iyadoo coda iyadoo waraaqada xafiisyo ah uma maleeyo wixii Soomaalida nin hadlay mooyaane oo meelaha ka hadlay ma maleeyo cadeymaha soo dhigayo oo cad weli kuma arag YouTube iyo meelaha la soo dhigo amba Facebook-yada tutifatiran oo sidaan usoo dhigi doona hore loo soo dhigay laakiin maanta waxaan iyadoo tusaale ah oo cadays ana meel kale loo maray aan soo dhigi doono nila qaybsan doono computerkana nila qaybsan doono warqadaha iyadoo qoraala iyadoo coda iyadoo fiidiyoya nila qaybsan doona barnaamijkaas oo iska yar koobnaan doona waxaan doonayaa kow inaan anigu aan la wadaago Soomaalida arrinta ka jirta jigjiga iyo maxkamadaha iyo kiisaska tusaale u noqoto waxa aniga igu dhacay dowladda imika dhismaysana ay ku bedinato oo dhalinyar iyo dad aanan musuq ana calooshoodu xaaraan ayna gelin ina la doorto dumar iyo rag laakiin dhalinyara laakiin nin ku jira dowladdii hore cabdi ilay walaatan cagjar inaan la dooran inay ku habboon tahay cadaysteydii baa inii keeni bismillahi raxmaan raxiim okay waan bilaabanaynaa waa dhowr waraqadood iyo codad markaa dhegaysta warqadaha markaad akhrisanaysiinina postgrade doonaysiin marka waxaan ku bilaabi doonaa waa aniga kiiska saa u fahantiin dhulkii aabbahay la ficisa ku taalo waa banka jibjiga oo aabbahay iyo walaalihii uu la leeyahay iyuu adeerkay 2500 uu u baahday nin in adeerkay Axmed Deere la yiraahdo ay kala bedeshay 2500 ka qaatay beertii intii adeerkay iyo intii aabbahay iyo intii anako lahaynana ku haysta qaatayna anako maqan marka anuna hadal ahayn cadaysin industona waatan cadaystii ugu horeysay aan ku bilaabayno waxaa qoray dowladda ku roonay dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya ku socotaa maxkamadda sare gobolka Faafan ujeedo cadayn dhibaatadii igu kaliftay sidii aan beertan u iibiyay maxkamadda sare ku socotaa waa aniga uu leeyahay oo Xaamud aw Maxamed Caliya waa adeerkay waxaan maxkamadda sharafta loo cadeynayaa sababihii igu kalifay inaan iibiyo dhul beereed la wada leeyahay oo aan ku leenahay 8 qof waana sidani uu sheegay arrinta lacag baan u baahday 2500 baa ka qaatay qaybtaydii iyo qaybtii kale oo la maqan yahayna sii qodaba iska qodan kaydi marka wuxuu adeerkay sida ku yiri markii kadibna walaalahay ayaa i haysta oo wuxuu doonaya sida darteed waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa in heshiiskii dhibaatadu igu kaliftay laga buriyo kadibna maxkamadda sidii uu iibsaduhu lacagtiisii u qaadan lahaa la ii yeelo maadaama aan si khaldan dhul la wada leeyahay aan ku iibiyo adeerkay baa qoray wuxuu leeyahay ninkan lacagtan ka haya 2500 waa kan uu celinayaa walaalahayna si khaldan iyaguna ogeyn baan ka iyaan dhulkoodiina ugu ninkan ku darsaday qaybtaydiinana 2500 waatan maxkamaday waa kan sidaasi go'aan nagu soo saara waxaa u raacsan maxkamadda aabbahay maxkamadda sare shareecadda gobolka Faafan iyo isku taariikha Sabax Cabdi Maxamed anigoo codsanaha sare ku xusan waxaan maxkamadda sharafta leh
usoo gudbinayaa cadeymo lifaaqa oo haysto dhaxal qaybin walaalahay aniga oo waafajinaya sida qodobka 223aad u dhigayo waana sidan markhaatiyey sidaas darteed waxaan dhab ahaantii cadeymahaygii ku xaqiijinaya sida qodobka 29aad mahadsanid aabahay baa qoran markaa waa 2007 taariikhda Ethiopia 8 sano ku darasiin waa 2000 markaa waxay noqonaysaa 15kii adeerkayna sidaas u yeelay idin isku taariikhda una maxkamaddii baa loo geeyey maxkamaddii gobolka shareecadda waqtigaana waqtigii cabdi ila haystay maxkamaddii dowladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia maxkamadda sare shareecadda gobolka faafan way isku yeedhay waxay tiri xukun baan gaadhaynaa taariikhdu markay ahayd 2007 inta xagga sare ku qoran waa taariikhda Ethiopia fahantay okay way fadhiisatay go'aan may soo saarin musuquna halkaasuu ka bilaabmay ninkan aan aysaysano Axmed Xasan Kaahin la yiraahdo wuxuu bixiyay gubo iyo lacagtii maxkamad lacagta uu siiyey maxkamadda la faciise ayna ilaa iyo maxkamadda macal jirjiga ana loo fadhiisan lama fadhiisan marka taariikhdu ahayd 2007 haddana warqad kale maxkamadda shareecadda ka soo baxday oo aabahay cabdi maxamed dacwadii furay uu leeyahay warniyaho go'aan siiya lacagtiina waa tan lacagtiina ninkiina maynu siin dhowr sano laga soo wareegay sanad baa imika laga soo wareegay lugooyada naga daaya maxkamado na kala saara maxkamaddii warqad bay qortay waxay u qortay xaamud waxay tiri waqtigaa ku imo 2007 bisha 9aad haddaba waxay maxkamaddu mar labaad kugu adkeynaysaa inaad muddada ay maxkamaddu kugu qabatay aad ku timaado iyada oo haddii ay muddada maxkamaddu kugu qabatay aad ima weydo maxkamaddu dhageysan doonto go'aana ka soo saari doonto adoo maqan ka hadda waxa ku qoran waxay dhageysan doontaa aabahay haddaad ima weydid go'aana ka soo saari doontaa aabahay wuu yimid xaamud muu iman go'aana maxkamadda may soo saaray kow waxay burisay qodobkeedaasi ay lahayd anaku go'aan baa soo saarna hadduu dacweysuhu yimaado cadaystii koobaad waa taasi dhowr cadeymood baa inay hayaaye sabra Soomaaliyeed iyo wixii dhageysanayo cadeymo weystaba kolba midba ka dib cadeymo ka sii weynaan doonaan go'aankii may gaadhin weyna isburisay taariikhdu waxay ahayd 2007 bishii 9aad 2008 bishii koobaad haddana maxkamadda deegaanka Soomaaliya Ethiopia maxkamadda sare gobolka shareecadda faafan aabahay cabdi maxamed waxaa loo diray Axmed Xasan yeelitaan maxkamadeed sida go'aan looga gaaro haddana go'aanku hadduu ima waayna go'aan maxkamaddu qaadanayso waqtigana waa la gaaray 2008 8 sano ku daro waa 2016kii wax la gaaray waa la fadhiistay go'aanna ma la soo saarin way isburisay haddana mar labaad maxkamaddii shareecaddu way isburisay ka soo gudub haddana 11kii 8 ma socnamaha bishii musa u dhaxaysay 3 sano kala dabadii iyo haddana maxkamaddu waxa dhacday waqtigii cabdi ilay saasay ku tagtay marka cabdi ilay waqtigiisii de kulli markhaatima uma baahno musuqmaasuq wuxuu ahaa maxaa ka qosay marka maxkamaddii cusbayd iyo haddana iyo maamulkii cusbaa ee cagjar yeelitaan maxkamadeed sida qeexaya qodobka 94aad foomka yeelitaanka dacweysanaha ee dacwadda bilowga ah Axmed Xasan ku socotay Axmed Xasan Kaahin waa ninka ay maxkamaddu intii hore oo dhanba go'aan ka soo gaari weyday waxay dacwadda kugu furay cabdi maxamed waxaana jawaabta dhageysiga loo mudeeyay waqtigaasi 11kii 8 sano ku dar waxa weeyaan 2019kii June saacadu ay tahay 9ka haddaba maalinta la cayimay dhageysiga jawaabtana haddii aad maxkamadda hor iman weydo adiga ama qareenkaaga ama wakiilkaaga sharciga
si buuxda dacwaddu uga jawaabi kara waxaa lagula socodsiinaya in adiga oo maqan dacwadaada la dhegaysan doono go-aana laga soo saari doono waxaana waraaqada yeeritaanka kugu soo lifaaqay dacwadda ku kooban 2 buug haddaba waxay maxkamaddu mar labaad ku faraysaa inaad muddada maxkamaddu kugu qabatay aad ku timaado iyadoo haddii aad muddada maxkamaddu kugu qabatay aad iman weydo maxkamaddu dhegaysan doonto go-aana kasoo saari doonta adoo maqan maxkamaddu inay dhegaysato aabbahay isagoo maqan hadduu iman waayana ay go-aan ka soo saarto waa 2019kii waqtigii waa la gaadhay maxkamaddu iman waaye go-aanna way soo saari weyday iyadiiba haddana mar saddexaad maxkamaddii isburisay ay waxay warqadeeda ku qorto ay ku shaabadayso inayna ku dhaqmayn waa mar saddexaad musuqmaasuqaad waayahay halka markay aan joogno waayahay halkaa markaan joogno iyuu xaakimka guddoomiyaha maxkamadda shareecadda gobolka faafan sheekh axmed sheekh cumar maxamuud aabbahay kula taliyey inay maxkamaddii ninkii hore sii fadhiyey meesha ay musuqmaasuq ay meesha ragaadisay arrintaadu ay tahay arrin madaniya maxkamadda shareecadda ayna ku habboonayn axmedka iyo musuqmaasuqa uu geystay inay madani ku furtid lasoo xukumo la xidho 3 sano 4 sano uu beerta qotay si sharci darrana kuu qotay aad warqada ay maxkamadaha u taalay uu weli isaguna si badheera u qotay madaniga ka soo dacwee halkaa mar ayuu kula taliyey wuu sameeyey aabbahay wuu socday maxkamaddii madaniga ayaa la tegey maxkamadda madaniga waxa weeyaan waa constitutional courtka waxay shareecadda Etoobiyaanka ayaa lagu waafaqa waa maxkamadda dambiyada caadiga go'aamisa weyn waayahay aabbahay dacwooda cabdi maxamed cali degmada lafaciise garsoore maxamed maxamuud dacweysane axmed xasan cumar waa inankan kuu sheegayey haddaan ina dul maro inankan waa 7 oday baan kala tirsanaa aabbahay waxaanan isku nahay deegaanka lafaciise yani okay maxkamaddii garsoorahanana waa garsoore lafaciise markaa ka shaqaynayey saaxiibana yihiin axmed xasan ahaayeen isku shushubtaanana waayahay maxkamaddii aabbahay wuu tegey 2012kii markaas dii ku dir 2019kii meelaha waxay ahayd November maxkamaddii madaniga ayaa go-aan soo saartay aabbahay bay dhageystay inay beertu 36 quudi tahay oo 3 daaq tahay 3 daaq oo 3 bahood loo kala ay kala leeyihiin oo ina loo qaybiya oo 3 daaq ay tahay uu ninkanana uu si badheera ku qodanayo waxaan ka rabaa magdhowdoodii iyo inaa layga qabto iyo maxkamadda madaniga la keenay okay waxay samaysay markaasi isaguna axmed xasan markii markhaatihii lafaciise la keenay waxay been abuur ay isla qaateen garsoorahan iyo axmed xasan inay been abuur sameeyaan imise horta caddeys ban 3 soo caddeys maaha caddeys weyn oo dowladda Itoobiya ee dowlad deegaanka Soomaaliya ay maxkamadaha ka jira ay macal inaa lagu buriyo oo ay dowladda ku dhacda ayaan tusi doonaa halkan akhrista waxaa dhigatiin pause akhrista intaan akhrisanna anaa inay akhrin kadib waxay maxkamaddu yeelis u samaysay dacweysanaha iyadoo ugu lifaaqday nuqulka dacwadda kana soo jawaabo taariikhda sida uu qabo xeerka 94 waxaanu dacweysanuhu muddadii ku soo dhaweystay is-hortaag waxay isla garteen isaga garsooruhu inay is-hortaag sameeyaan is-hortaag nuxurkiisu yahay maxkamaddu awood garsooruma laho in dacwaddan dhegaysato sababtoo ah dacwaddan waa dacwad hore uu
maxkamad u dhageysatay go'aan ka soo saartay dacwaduhuna xaq iguma laha in mar labaad maxkamadda kale igaga soo dacweeyo haddii aanu ku qancin go'aankii maxkamadda sare shareecadda ka soo saartay haddaanu ku qancin wuxuu xaq u leeyahay in rafiican uga qaato maxkamadda ka sareysa ee xaq iguma laha in xukuumadda hor leh haddana uu iga soo dacweeyo ta kale dacwaddan waa dacwad dhaxala siduu u sheegay isagu taasna dhageysiga waxaa iska leh maxkamadda shareecadda islaamka wuxuu ka been abuurtay ninkii dacweysanu saasuu soo dhigtay saaxiibkii garsoore ninka ay lafaciisla isla deganaayeen isla qayilaan garsoorihiina wuxuu sameeyey go'aan buu soo saaray wuxuu yidhi go'aankaygii haddaba markay maxkamaddu baadhis ku samaysay dooda labada dhinac waxay maxkamaddu ku qanacday dooda dacweysanaha waa axmedi taasoo caddeeyey in dacwaddan ay hore uga furan tahay maxkamadda sare shareecadda gobolka faafan waxayna maxkamaddu ka soo saartay go'aan kaasoo ay ku xidhay galkan waxayna maxkamaddu amartay ciddii aan ku qanacin awaamirta maxkamadda waxay xaq u leedahay inay rafiican uga qaataan saaxiibkii garsoorihii wuxuu ku raacay saaxiibkii axmed xasan uu leeyahay maxkamadda gobolka shareecadda faafan hadda waa shareecaddii aabbahay soo dirtay ka tiri halkaa ka furo ninka waa dambiile ha lagu soo qabto madaniga kuu soo qabanaysa dhaxal way ka wareegtay wuxuu qotay 4 sano iyo xaqdari ku qotay lacagna ninbay iskala weydaarsadeen oo adeerkaya lacagtiina wuu diiday inuu qaato loo soo celiyo waa maxkamad madaniya gey markii laga yidhi ayay maxkamaddan ay tiri weliba waxay ku sii lifaa haddaba markay maxkamaddu ay baadhis ku samaysay doodan labada dhinac baadhis bay ku samaysay oo baadhistaasi ay ku raacday inay maxkamadda shareecadda islaamka waa maxkamaddan shareecadda islaamka tan maxkamaddan deegaanka soomaalida maxkamadda sare gobolka shareecadda faafan gobolka faafan maxkamaddan baa soo saartay go'aane go'aankaasi oo dhaxale anigu awood uma lihi haddaa go'aankaasi rafiican ka qaado ingiriiskan jooga waa November 2020 anigu waxaan ogaa 4 sano xaqdarrida iyo beenta 3 goor ee hore aan ogaa maxkamaddu ay isburisay ee go'aan qaadi weyday ay musuq aha waxaan haddana ii caddaatay guddoomiyihii maxkamadda shareecadda ee faafan isagu uu aabbahay yidhi madaniga fur markuu madanigii furana ay ka been abuuratay anigoo og ayaan tigir qaatay waxaan tegey jigjigaan tegey waxaan u tegey sheekh axmed sheekh cumar maxamed guddoomiyaha maxkamadda shareecadda gobolka faafan waa kuwan go'aanka uu garsoorahan iyo ninkan musuq maasiqa isla jooga lafaciisa ay ka been abuurteen baa yidhi mogtay war goorma go'aan noo soo saarteen sheekh axmedow sheekh axmed wuxuu ga yidhi waxaas waxba kama jiraan maxkamadaha madaniga waan ognahay intii hore aan meeshana imanana shareecaddan waxay ahayd shareecadna may ahayne shareecad shaydaan bay ahayd musuq baa ka jiray haddana aabbaha waddadii toosneed baan u tilmaamay waxaan ka yidhi madaniga haddii madanigii ay beeniga abuurteenna anigu waxaan kuu qor warqad caddeyna inay maxkamadda guud xeerlaalyaha guud ee deegaanka waxaan oo dhan inay wada yihiin dad wada been abuurayaala maxkamadahooguna ay ahayn dad tayana lahayn diinna lahayn dadnimona lahayn biidha qaatay oo lacag qaata gubayal qaata anaa ku caddayn waan haysaa waan ku caddayn dee ii qor ma ka yiri sheekhow ii qor inay been abuur ay sameeyeen maxkamadda dastuurigu ii qor ay kay weliba adiga kaa been abuurteen waa haddana waa caddaystii afraad waxaan nii hayo ummadda soomaalida akhrista sheekh axmed sheekh cumar maxamed waxay ahayd 2020 bay ahayd 2020 march markaan tegey waxaan ka tegey isagu tegey waa kan wixii qoray ku socota maxkamadda sare gobolka faafan waxay ku socotaa
maxkamadda sare ee gobolka Faafan tan bay ku socotaa waa Jigjiga Salebaan baa haysta gudoomiyuhu waa nin hawiye iyo haysta ku socota maxkamadda sare gobolka Faafan ujeedo caddayn go'aan sida ujeedada sare ku xusan maxkamadda ay warqadan sida tooska ugu socota waxaan u caddaynaya inay jirin wax go'aan oo ka soo baxay ama laga gaaray kiiska sumadiisu tahay kula taariikhaysan waqtigaasi kana dhaxaysa dacwade Cabdi Maxamed Cali iyo dacweysane Axmed Xasan kadib markay maxkamaddu si qoto dheer u baadhay faylkan waxa u soo baxday inayna awood garsoor u lahayn sidaa darteed maxkamaddu way xidhay kiiskan taariikhdu markay ahayd 2011 taariikhda Itoobiya haddaba waxaan mar labaad inay caddaynaa inaynay jirin wax go'aana oo laga gaaray kiiskan maxay inay caddaysay magaalo maxay inay caddaysay inay 2012 warqaday qoreen go'aankay qoreen inaybaba waqtiga ay go'aanka qoreen 11 sanadkii ka horreeyay ay maxkamadan shareecadu ayna go'aan qaadin case-kana xidhan tahay haddaa raggan ay qoraya taariikhdu markay ahayd 2019kii November lana xidhay tan la xidhay 2019kii la xidhay bilowgeedii la xidhay ee yidhi haddaba waxay maxkamaddu ay baadhis ku samaysay doodan labada dhinac waxayna maxkamaddu ku qanacday dooda dacweysana taasoo caddayn dacwadan ay hore uga furan tahay maxkamadda sare shareecadda gobolka Faafan waxayna maxkamaddu soo saartay go'aankaas oo ku xidhan galkan waxay ka been abuurteen maxkamadda ka furnay maxkamadda gudoomiyuhu wacdi waxba ma furno marka raggan maxkamadda shareecadda lama hadal ma hayaan maxkamad ka furan laakiin ileen waa dad baadiye iyo Jigjiga iyo dadkan oo dhan dad tixraac lama lehe waxaan iska qoranaynaa waxaan rabno garsoorahan maxamed iyo Axmed Xasan kii la dacweynayay iyo garsoorihii iyo saaxiiba lacag wada qaata waxaana way soo dhoobeen waana markaan Itoobiya tagay Jigjigan tagnay waana ku cadiyay marka 14 cishan haystay oo Jigjiga aan joogay fasax aan kayskii ku soo cadiyay inay maxkamaddu dastuuriga ee Awbarre iyo Lafaciisa iyo gudoomiyahooga gobolka Faafan laga xukumo Salebaan iyo maxkamadda guud waxoo dhanbaba inay been abuur ay ka sameeyeen been abuurkiina aan soo cadiyay maxkamadda shareecadina been abuur ka samaysteen ay ka sameeyeen marka maxaan sameeyay 3 fayl oo caynkana may 4 fayl oo caynkana iyaan sameeyay waxaan ku lifaaqay dacwadii aabahay iyo Axmed Dheere u dhaxaysay dacwadaas oo jiitimisay intaasoo sanadood dacwadaasoo ka been abuurtay go'aankii maxkamadda Lafaciisa la gaaro been abuur dacwadaasoo aan ku caddeeyay maxkamadda shareecadda Sheekh Axmed Sheekh Cumar Maxamed uu qoray inay ka been abuurteen oo been abuurad ahay iyaan 3 fayl waxaan sameeyay 4 fayl oo mid ku socota madaxweyne ku-xigeenka midna wasaaradda qubajooga midna maxkamadda guud Maxamed Cabdiraxmaan Ismaaciil maaha gudoomiyaha laakiin meesha laga dacweeyay maxkamadda guud aan tagay midnana ku socota wasaaradda musuqmaasuqa iyo musuqmaasuqa soo qabtay madaxtooyadan ku horreeyay madaxweyne ku-xigeenka waa waqtigaasi aadan baa la oranayay aadan faarax
وحلقي وانين عيسى مركا halkaasaan ku yaan isku dayay bal faylkayga geeyo iyo cadaystii iyo maxkamadii aan ku soo qabtay been abuurka iyo musuqmaasuqa madaxtooyadu waa tan madaxtooyadii faylkaygii baan geeyey madaxtooyada marka halkaa joogo askarigaasi anoo halkan socdo oo faylka inaan madaxweyne ku-xigeenka xafiiskeeda aan geeyey aan doonayay caddaymihii ayuu laga yidhi halkan ma dhaafi kartid si xunna waa leecaayey markaasaan ka yidhi war maxaad icaysin ma ciidankii cabdi iley ba ka soo hadhay diinta cabdi iley maxa iyo anaku cabdi iley abba noo yahay meesha ka baxa iyo see uga baxa ninkaasi idabta darana waa kala waxsi ulna wuu sitaa igu soo dhaqaaqay waan ku sawira baan ka yidhi maaha inaad dadka si ku handido meeshan isbeddelka jira awgeed ma aha dadkii iska markoo iska handidi jirteen dhibi jirteen nin kastoo sharci ku jooga amba sharcigiisa raadsanaya xuquuqdiisa raadsanaya lama handidi karo baabuur baa halkan soo maraya ninaan direes xidhnayn kii baa igu soo dhaadhacay ninkan baa ka yidhi war ninkaasi cabdi iley buu caayey hadda waxa jooga halkan waa madaxtooyada markuu haystay waa ayantii waxa weyn waa sanadka hore 2020 weliba waxa weyn waa march waxaana haystay xabjar cabdi iley baa halkanana laga difaacaya gaadhigii buu ka yiri ninka cabdi iley waa ninka way soo dhacay diinta maxay cabdi iley daacad halkaasna saas kaaga dhufin bigal mugta wixiina dhex marayna waa tan iyadiyo video booliiska السلام عليكم halkan waa dabaqa saddexaad ee commissionerka booliiska ku dhegsan dabaqan waxaa la xisbiga iyo qurba jooga deegaanka dowladda deegaanka Ethiopia jigjiga aniga oo Fatxiya maanta taariikhdu waxa weeye bishii 17 February 2020 bishii waa 17 February ayaan isniina 2020 madaxtooyadan tagay madaxtooyada lagu handaday sagaalkii ilaa 10kii dadkii joogay marxaati 7 yaa joogay 7 nin ciidan bay ahaayeen ciyaal dhalinyaro waxaa lagu caayay isir ahaan oo dir ahaan inay iyagu dadka kale ogaadeen ka soo jeeda amba daaradka inay leeyihiin madaxtooyada qofkana loo ogolaan taana waxaa ka sii darneed inaa laga yidhahda mar daba kusoo noqotay halka kugu arkano inaan madaxa kaa toogan doono ninkii yidhi wuu ishubaa magaciisa igu sheegin diriis muu xidhnayn dharcankayga kula xidhay oo sibila inaan cas oo deegaan looga maarayn iska cas ilka cas oo nin jaad cuna u ekaa ilaahay diinta iyo siidka hooyada wuxuu dhan ugu caayay wuxuuna caayayna isir ahaanna wuu caayay haddaan dib kugu arko madaxtooyada madaxa kaa tooganaya arrintan waxay ka dhacday markii aan warqadda tabinayay laga yidhi ma geli kartid aan yidhi niyo xafiiskan u baahanahay inaan dhigo warqadahan dacwadda iyo si xun ila hadleen marka yidhi warcima ciidankii hore ka soo hadhay afka xumaa iyo cabdi iley halkaasay ka bilaabatay diinta iyo ilaaha iyo waxaa tahayba cabdi ileyna ku aabba loo yahay meeshanana waa meel ogaadeen dib haddaa ugu soo noqotid madaxa kaa tuugan inaan dheer buu ahaa oo kaasi diriis buu xidhnaa kaasi waa kii fidnadda bilaabay isagu imuu caayin laakiin waa inaan dhalinyara 20 jir fidnadda bilaabay laakiin nin weyn oo cas ilka cas weyn oo diriis xidhnayn waxaa cayda sameeyey cayda dadka caayay yidhi meesha annakaas kale hadda dib u sanato madaxa kaa tuugan waxay u taallaa dowladda deegaanka u taallaa waxay u taallaa ummadda Soomaalida u taallaa inay arrintaasi daba gashay iyo in kale wabillahi tawfiiq okay maxkamaddii musuqmaasuqii aan ku soo caddeeyey adeegii aan u doontay madaxweyne ku-xigeenka dhibaatadii iga soo gaadhay madaxtooyada waar waxaan ku socday madaxweyne ku-xigeen weliba lagu yidhi waa ciis oo dira aanu qaybtii dirkan socday hadda xidhatay macal qaybtii dhinaca kale tiraadeen waa daarood madaxtooyada may intoo dhanbaba waxay deer ku xidhan dhaba daarood baa iskale ogaadeen soo gali saas markay meeshii noqotay asar dhaafnay oo ka yiri war weliba ninkii si xun baa isku afdhaafnay oo ka yiri mugtay dee markaan u arkay dee daarood tuute igu xidhay tuute xidhan amba daarood kursi masaf fadhiistay oo kale uu igu noqday
yaa ka yiri war haddaan nin tahay ani diraysi iyo ciidan iyo iskuma kay walwaalay sidee jigjiga hoos madaxtooyada buurta ku taallay hoos u soo dhaadhac nin bal ninka wax degdeg arki doonaayo magaalada jigjige laakiin halkan iyo maya halkaasa madax kaa toogan waxaan sugay inta madax lagaa toogan iska dhaadhac waan iskaga tegey cadaalad aan helay iyo warqad aan kaysaan geystaba halkaasay ku beeshay waan ka tegey videogaasaan duubay siday taariikhda u gasho arrinta iga soo gaadhay waxaan markaa u gudbay maxkamadda guud ma intaana maxkamadda guud u gaadhin kayskii oo lamida faylkan oo lamida caddaystii keenay maxkamadda garsooraha iyo guddoomiyaha Saleeman iyo waxan iyo awbarre maxkamadda been abuurkay sameeyeen ay ka sameeyeen maxkamadda shareecadda ana soo cadeeyay faylkii baan u geeyey wasaaradda qurba jooga uu maqnaa wuxuu ku maqnaa Turkiga meel kale ku maqnaa marka dadkii meesha joogaan u dhiibay waxaan tegey haddana wasaaradda musuqmaasuqa ayaan tegey kii lamid wasaaradda musuqmaasuqa waxdee booliis iyo liyo booliis iyo meeshan may joogin nin ka shaqeyna nin macquul ahaa uu maqnaa mar hore la kulmo case kale laakiin case markaan geeyay tayadeeda uu maqnaa faylkii baan dhigay halkan maxkamadda iga soo gaadhay waxaan tusi doonaa laakiin waxay meesha ku qorqorteen mabaadi'da qiimaha yeelaysa commissionka waa commissionka musuqmaasuqa marka commissionka waxa la yiraahdaa commissionka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa DDS waa musuqa cid soo qabtay Soomaa waan u geeyay marka mabaadi'da anshaxa wanaag gudasho leh waxa uu taagan yahay uu garab taagan yahay shacabka iyo la dagaalanka musuqa daacadnimo shaqo cilmi ku salaysan shaqo wanaag isla xisaabtan dimuqraadiyad cadcadaan iyo cadcad iyo waxaas kusoo qoray marka ujeedadu waxa weeye in anaku musuqaan ka daba tagnaa waan soo qabanaa shaqadii qabsanayn baan u geeyey musuqii baan u geeyey soo qabtay baan ka yidhi kama haya ilaa imika 2021 baa ka haya musuqay soo qabteen waan ka gudbaynaa waxaan tegey maxkamadda guud dowlad deegaanka Soomaalida maxkamadda guud Somali Regional State Supreme Court waxa ku qorqoran baan tusi doonaa sidoo dee isbedel ka dhacay wax kastaba ay adeega qabtaan bay soo bandhigayaan marka waxay ku leeyihiin dhaqanka shaqada la rumaysan yahay core value adeeg aan eex lahayn hanaan shaqo oo cadcadaansho iyo la xisaabtan leh bixitaan adeeg waqtiga shaqadu ay qaadanayso caddahay dareen lahaansho adeeg degdegsiimo cadaalad leh iyo tayo leh adeeg ka fog danaysi musuq qabyaalad min jeclaysi iyo saaxiibtinimo dhowrista sarreynta sharciga arkaysa adeeg ka fog danaysi musuq qabyaalad iyo jeclaysi waa markii shanaad aan wax caddayn doono la socdo intaan halkaa gaadhin waxaan tusi doonaa waxay adeega soo bixiyaan tirsiga koobaad macaamiishu waxay rabaan in muddo gaaban oo degdega ay go'aan ku helaan kharashka in macaamiishu muddo gaaban lagu siiyo adeeg cadaaladeed iyada oo la dardargelinayo shaqo go'aan bixinta dhageysiga hore dambiyada fudud iyo kuwa qacan ku haynta ah waxaa la go'aan siinayaa 1 ilaa 7 cisho gudaheed anigana keyskeeduna muxuu ahaa dhowr sano bay soo jiitamaysa maxkamadoodii been abuurkeeda ku soo cadeeyna waan keenay ilaa iyo maanta 2021 ana keyskeygu lagu furan yahay 1 iyo 7 cisho ha ku dayso talabaad dambiyada dhexe iyo kuwa culusna waxaa lagu go'aan siinayaa
soddon cisho ha ku dayso rafiicanka waxaa lagu go'aan siinayaa 14 cisho maca rafiicanka markaa qaatay 14 cisho waa ta ugu dheerbo hay isku soo duubo saasay kullee saasaan qabsanaa halkan baa yimid waxaan ka bilaabay inakaasi maxamed cabdiraxmaan ismaaciil faylalkaygii caddaymihii iyaan hordhigay maxkamaddu been abuurkay samaysay baan hordhigay faylkiina waan u geeyey wuu iga guddoomay wuu ii saxeexay wuxuuna iga yidhi moogtahay waxaad u geysaa xafiiskan geebigeli kani u geey xafiiskan geebigeli moogtahay xafiiskan waa ayo waxaa la yidhaha cabdiraxmaan xasan ismaaciil iyo nin dheer oo kale ka shaqeeya isaguna dee habdhaqankiisa aanu u bogin oo waxaan ku tilmaamaa garan waaya laakiin inankan baa iga qaabilay cabdiraxmaan xasan ismaaciil agaasinka kormeerka iyo dabagalka xafiiska maamulka garsoorka maxkamadda guud ee DDS ma arkaysaa waa kan waxaan tusi doonaa maxaa ku qoran warqaddii haddeer aan hordhigay tan ma arkaysaa maxkamaddii sare gobolka faafan aan ku caddeeyey arkaysaa 55927 arkaysaa 5592011 sida ujeeddada ku socota madaxa maxkamadda wataasi waxaan hordhigay warqaddii caddaynka waxaan hordhigay go'aankii been abuurka ninkan musuqii aan ku soo qabtay garsoorihii ninkan axmed xasan cumar iyo ninkan garsooraha beenta cad ay gaadheen ay ka been abuurteen maxkamadda shareecadda islaamka iyo caddayntii iyaan hordhigay commissionkii bal maxaa ka weyn waa caddayntii shanaad maxaa ka weyn waxa la hordhigo maxaa ku habboon wixii boolisku qabanaya soo qabtay kuwa musuqmaasuqu qabanayeenba usoo qabtay waxa iyagu dabagalka ay ku ahaayeen yaan usoo dhamaystiray wixii oo dhan shaqadii dhan baan usoo qabtay waan hordhigay inay fuliyaan soo maaha inay axmed qabtaan soo maaha inay 4 sano beerta qodinayay haddii ku qoran magdhow laga soo qaado maaha hadduu lacagta bixi weyn inaan lay xidha soo maaha miyaan ahayn maantaan joognaa weli way haystaan go-aan lagama gaadhin hadda waa caddayntii shanaad caddayntii lixaad waxaan tusi doonaa caddayntii lixaad tusi doonaa SRTV rasmi page waxa weyn waa pageka rasmiga so inama tusin maxkamadda madaxtooyada inaa laga yiri meeshan ogaadina daarood iyo waxaas lagaga soo iray so inama tusin waxaan tusayaa dhibta ka jirta deegaanka ninkan waa xeraalyaha guud waxa la mudane cabdiweli jaamac ibraahim iska soo dhaaf qolo sare halka hoosaan iskugu nimaadnaa waxaan nahay samaroon iska soo dhaaf jibriyon iska soo dhaaf waxaan isku nahay reer maxamed ninkan musuq aan ku soo qabtay iyo xaakimka iyo ninkan musuq ku soo qabtay iyo anigu iyo ninkan xeraalyaha guud isku jifada reer maxamed baana laakiin xeraalyaha guud iyo axmed hal oday bay iskaga xigaan oo reer samatar bara anigana reer cumar maxamuud iyo samatar maxamed ujeedda sida aawadeed oo ninkaasi uu lug ku leeyahay iyay maxkamadda guud iyo caddaymaha iyo waxaan oo dhan u shaqayn lahayn bal de maxaad ka sugaysiin nin jidwaaqa amba nin akisha amba nin jaarsa oo jigjiga jogan sidaa samaroon kaleba jigjiga degan amba faafan degan xaqa helayaan anigay ninkan aan ilmaadeerkan ahayn iyo ninka habeen xiga ani iga dhicin karin waaba dadnimo haddaa la iskaga dhicinayo iskaba dadnimo maxkamaddii iyo caddayn aan ku hayo aan soo caddeeyey inaan go-aan laga gaadho aan dhegaysano waxay leeyihiin wuxuu leeyahay isagu
ka oo hal rukun ka dib u habeyn in lagu sameeyo shuruucdii hore jirtay in dib u habeyn lagu sameeyo taa micnaheedu waxa weeyaan shuruuc badan oo waxa jirta xilligaas soo baxaysay oo ka hor imanaysay dastuurka iyo shuruuc aan la jaan qaadi karin xaaladda iminka lagu jiro marka dib u habeyn in shuruucda lagu sameeyo laga maarmaan bay noqotay marka heer federaalna waa laga waday heer deegaanna waan ka wadnay marka tusaale ahaan anagu markii aan xilka aan la wareegnay dib u habeyn badan oo xagga sharciga ayaanu sameynay qorshaanu samaysanay qorsho si ku meel gaaraan qorsho samaysanay sideed marka wax uga bedeli kartiin oo hay'adaha cadaaladda marka sharciga adigu soo celin kartaan si ay sharciga ugu shaqeeyaan baan misnidi marka qorshi kolkiiba qiimeyn baanu sameynay waxaan u wada yeernay xeerlaanta oo dhan waanu qiimeynay problemkii jiray baanu ogaanay dabeed qiimeyntii markaanu qiimeynay dadkii mataqaanaa anshaxumada lahaa ama aan nala sii socon karin waanu ka saarnay kuwii kalena waxaanu siinay tababar iyo attitude-ka inaan ka bedelaan isku daynay oo ay noqdaan dad mataqaanaa attitude-kii hore ku jiray inaan ka bedelo oo dad sharciga ku shaqeeya ay noqdaan ayaanu isku daynay marka halka maxaa ku cad isagiiba cadiyeba inuu yiri meesha musuq baa ka jira dadna waan erinay dadna tababar baan u xidhnay inay anshixidilis loo soo bilaabo waa August 2020 cadeymuhu way tira dhabeeleen kii misaad basna cadeyntii misaad ma socda cadeyntii lixaad iyo shanaad midna tu kala cadeyn kala lagu daraya waxaan joogay maxkamadda guud waxaan joogay maxkamadda guud halka gudoomiyaha fadhiistay maxkamadda guud ee dastuuriga imika ay sheegay halkana gudoomiye ku xigeenkii gudoomiyahan waa nin isaaq ani sheegay anigoo halkan fadhiya oo sugaya inaan gudoomiyahanna arrinta gaarsiiyo ilaa waa kan xafiiskiisiiba aan gaarsiiyay nabada aan gaarsiiyay xafiiskan iga soo horjeeday kaan aan gaarsiiyay iyo igu soo baxay waxa igu soo baxay Axmed ninkan dambiilaha iyagu soo baxay ay xigan xereelyaha guud ninkaas soo wata odagan maxaa ahay odagan waxa la yiraahdaa Cabdirashiid waxa weeyaan oo oday saaqa waxayna isku dhow yihiin gudoomiyaha wuxuu u soo qaatay musuq maasuq bal maxaa ka dhaxay odaga saaqa dadkiisii musuq ka haysan reerkiisii musuq ka haysan odayaashiisii musuq ka haysan odagaas uu geliyay gudoomiyaha maxkamadda cadeyna ma ahayn sawir iyo ana wax ni sheegay waxaan dhageysin doonaa codkiyo caadiya aniga ku hor cadeynaya maxkamadda dhexdeeda dhageysada galay garsoorkii caadiga ah lagu been abuurtay waxa anoo socda maanta waxa ilaahay ila kulmiyay iyo ninka gudoomiyaha waa isaaq moogtay inay odagan isaaqa inay madaxa u galiyaan ay soo kaxaysteen tolkooda iyo suldaanad may soo kaxaysan illa way og yihiin raggan ay xaq ku joogin ninkana oo miskiin ah oo malaha gabadh naga qaba iyo Cabdirashiid soo kicino waxay ku jibinayaan ninka kale isaaqa gudoomiyaha saasaan u arkaano ورد دنبيليال aan ku hayo intaan joognana waan ka adagahay inta aan sharci ku joogo okay halkaasi maxkamadda guud ba meesha aan joogay aan ku sheegay maxkamadda guud hoosta shahba lagu cabaa waxaan ku cadeeyay odagan Cabdirashiid inuu ninkaasi dambiilahaasi maxkamadda guud keenay kibir aawadi iyo inuu ku tilsan isku halaynayo xereelyaha guud uu keenay sidoo maxkamadda guudnika odaga saaq ka shaqeeya inuu saaq ku jibiyo kamana gaabsan runtiina waa ku hor cadeeyay maxkamadda wada dhageysanayay muxuu ku jawaabayaa dambiilihi wuxuu oran doonaa anigu lacag baan bixiyaa dhageysada nin lacag ma ba qarsanayba lacag baan bixiyaa ku leeyahay dambiilihi de hay lacag bixiyaa eeg عوري ما دميس ما كحاولت لكن أنا أقول لعب بحي أنا هالكل نفسه
كبر dee haya lacag bixiyaha eeg لعق بحيها ماكسب محكمة دي كده حرمة أن لعق بحيان محكمة دي لما جو قدومية ما جوان لكن هو استشار قعبي قدوميها إن أودين عبد الرشيد ما قعد أبتي وأني ساقهم بي كوجو جبيني يعني نيك كله قدوميها كله ساق كوك كيسنا رجعن يندب هجرين أنكير أنكور عدي ينون لعق بحيان نعم محكمة ده هو ردن لعق بان بحيان أودين ما لها لعق بان سيا قدومينا لعق بان وضع أصابي taasuu ku cadiyo kan dadkii maxkamadda ka shaqeynaya hoosha ku cabeeyay maxkamaddu inay shaqeyn iyo wadana Cabdirashiid iyo afkiisa hadana ka dhageysana maxkamadda dibta ka jirta adeer galaan ma dhamays maxkamadda laakiin been iyo balaaga iyo inaga muxuu yiri hadii odayaal galaan arrintaasi way dhamays laakiin maxkamadda balaayi iyo oo ku dhageysta ariga adeer galaan ma dhamays maxkamadda laakiin been iyo balaaga iyo arisa wuxuu cadeeyay in maxkamaddu waxba ka socon Cabdirashiid baan dhageysana maxkamadda idan dibteeda naga horma soo kacaysan dibka iska abti halka dhig bajaaj iska raacay hay maxkamadahan waa lugooyo waa lagu dhabar jabaa waa lagu anti beela abaar iyo ulul waxaan ahayn adiga muxuu yiri maxkamadahan waa lugooyo waa lagu dhabar jabaa waa lagu hanti beela abaar iyo ulul waa lugooyo okay hay maxkamadahan waa lugooyo waa lagu dhabar jabaa waa lagu anti beela abaar iyo ulul waxaan ahayn وعديستي مسادو حيني هايو محكمة جيجيا محكمة دستورية إني بابا يهين مسك رجالي بين أبو الشعب مكوسو عدي ويتربش عديستي مساد وإني ودي عديمه دقيست waxaan tagay maxkamadda guud marka intaas oo cadeymo ahayay warqadii geeyay case-kii geeyay file-kii geeyay aan soo cadeeyay iyaan maxaa yidhahdana maxkamadda sare gobolka Fano ka hooseysa maxkamadda guud baa ka sareysa tani gobolka Faafan bay xukuntaa ninka Salebaan iyo maamula Salebaan waa ninkan u garsooro u shaqeeyo marka garsoorahan la ficiisay tuugintan iyo waxan waa ninka xukuma Salebaan Sheekh Rashiid أو برهنك واحد لقى حكومة جيجية لقى حكومة نكمل بهور جاي كير مقطع واكن عديمه واكن بين أبور كيني واكن محكمة دينية قصة قبطي نيجو بيحكي لي بعضو ما بساس بعد سيد وصو سيد دبقل وصو قشة واكن فايل كي بهور دينارسا فايل كان وفايل كيسي كأن كي إيو محكمة الشرع دوحي إسلفاقسن يا هردي وكان حفيزكي إسقي وفردية وكان أبهاي هكا فردية فايل كيننا وأنا هردي تلفون بودري محكمة دا أو برا وكيري فايل كي وأفرا قوان كي نسية محكمة دونها نكي هلا محكمة دي حسن hortaydu ka yiri moogta marka ku soo qabanay marka uu wiir hanjabi cigar mata madaga soo daba gashay de anigu nin xaqiisa raadsanay hadda shaqadii qabsanaysa in soo qabtay garsooray ku shaqeynaya been abuurkiisa ku soo qabtay maxkamadiinu inay been abuur tahay aan soo cadeeyay inaad musuq iyo laalu shaqaatin soo cadeeyay dhowr sanadoodna aan niga sugayno xukun maxaad kale iga doonaysaa abaru la hadlay فايل كينا وهردي أو برا مركاسي هي هدنا واكن وإسلا in 2020 لحديدي وحي قرين إمات المحكمة دي حسب كي بقوا قرين نكي موسيقى اللي هي محكمة دقمة أو برا واحد كفاريسا إنا هرتي ماديد
maxkamadda taariikhdu markay tahay waqtigaasi oo 2012 waxa weeyaan 2020gii march ayaanta khamiista waa inaad timaadid maadaama maxkamadda dacwad cabasho madaniya kaa taala waxaana lagugu soo lifaaqay dacwadda cabashada inta si aad u soo jawaabto kuna keentay jawaabta iyadoo qoraal waxaa lagu wargelinaya inaad ilaaliso waqtigii maxkamadda kuu qabatay qodobkana loo sheegay ninkan isagoo isku haleynaya sidii dee ninkiiba aan ii sheegay xiriirlaha guud isku haleynaya ma kontonkiisa dollar isku haleynaya ma raggan buu lacago hore u siiyey oo isla og yihiin ninka ini taalla reer jigjigiyo dowlad deegaankii soomaalida kale laakiin wuu ima waayey aniguna caddaystamay haddana maxkamadihii baan ku noqday ninkii wuu ima waaye wuu inaga adag yahay ninkaa yar baacmi jira kontonka dollaras wuu inaga adag yahay haddana warqad kale haddana qoreen maamulka centerka la ficisa ku socota maxaa qoraysa maxkamadda degmada Awbare ka soo jawaabi gaadhsiin yeeritaan sida ujeedada sare ku xusan waxay maxkamadda xafiiska ay warqadda sida tooska kugu socoto weydiinaysaa warbixinta warqadda gaadhsiinta yeeritaanka ahayd ee hadda ka hor maxkamaddu idinku soo socodsiisay sumadiisuna ay ahayd taasi taariikhduna ahayd taariikhda 12kii Ethiopia lana gaadhsiin Axmed Xasan sidaa darteed waxay maxkamaddu sugaysaa jawaabtii maxkamaddu maxkamad kale ma ogtahay ninkii u shaqeynayay la ficiisa joogay Awbare kale warqadii ay soo qortay ninkii maxay ugu geyn weydeen iyo ninka uma dhawaan karno mala xiriirlaha gudbow iyo ilma adeersi wala xiri miye mise ninka lacag baan ka haysan lacag buu nasiyo uma soo qabanin wax ninka ni taal uu ka soo jawaabay haddana booliiska haddana aan dalbanay maxkamaddii haddana Awbare waxay qortay ku socota rugta booliiska la ficisa ujeeddo gaadhsiin yeeritaan waxay maxkamaddu degmada Awbare ku idifalaysaa inaad soo qabatiin adoo ninkan kiina may soo qaban booliisku ilaa iyo waxaan u tegey jigjiga ninka la yidhaahdo super war booliiskiina warqad baa loo soo qora maxkamaddu ninkaas soo qabta dambiilahaasi ninkaasi super waa nin fiican buu ahaay telefoon buu dirsaday telefoonka u diray war ninka ma soo qabateen mana soo qaban maxay waxbaa is weydaarsaday ninkii lama soo qaban anigana 14 cisho jigjiga intaas iga soo dhimaatay 14 cisho inaan soo caddeeyo maxkamadda dastuuriga been abuurkay samaysay musuqoodii beentoodii oo caddaysa keenay madaxtooyadaan tegey laysoo handaday lagu yidhi meeshan wax iska leh meel ogaadeen weeyaan war uma socda meel ogaadeenaya xafiiska madaxweyne ku-xigeenka u socday kaasina waxaa lagu sheegay ciise may anakaa meeshan iska lagu qabsaday waxaan tegey maxkamadda guud oo ninkii dambiilahoo oday isaaqa wata aan ku soo cadiyay halka niisoo hordhigay musuq maasaqii hortiisa maxkamadda ka cadina lacag baa bixiya waxaa inii soo caddeeyey iyagiioo leh maxkamaddu waxa ma qabato waa lagu abaar beelaa waxbana ma qabato afkoogii laga hayo waxaa inii soo caddeeyey inaan guddiga musuq maasaqa kayskagii aan gaadhsiiyey waxaa inii soo caddeeyey iyadoo sawira oo sawiran oo kayskii anoo hordhigay maxkamadda guud been abuuradkii iyo musuqii aan soo caddeeyey waxaa inii soo caddeeyey anigoo hordhigay wasaaradda qurba jooga waxaana soo hordhigay anigoo maxkamadda gobolka faafan maxkamadda sare gobolka faafan Suleybaan hordhigay maxaa caddeys kale jigjigay sugaysiin amba Soomaaliya sugaysiin intaasaan kay geeyey waxaan tusayaa anigu waa kan aabbahay warqaddii faamiliga intaas la dhalanay aabbahay hooyaday aniga warqadaydii mustawaqihii lafaciise mar hore federaalka safaaradda Ethiopia dadka ku xidhan doonayay inay maal gashadaan dhulka banka jigjiga mar hore bergi cabdi ilay joogay aynay dhibaato iga soo gaadhay waxaan tusayaa inaan lug aan ku leeyahay deegaankii musuqii uu ka dhaqaaqi leeyahay intaasina waxay ka tahoon ma waxaad sugaysiin waxaan dhan ninkan baa iyo ka mas'uul hadduu qof ka mas'uul yahay maanta ninkan waa ka soo sharaxay la moogtahay ninkii aan ka sugaynay
walaalkii uu cabdi ilay yidhi wuu dilay ninkii aan ka sugayna inuu xumaan arkay ee uu hagaajin lahaa amxaaro mooyaan wax kale inuu ka shaqeey dowladdiisii iyo maxkamadihiina aan ku soo caddeeyey maantana u sharaxan dowlad deegaanka inuu baarlamaanka deegaanka musharax u ah dee deegaankiisa hadday dooranaya ahla wasahlan haddii qof kaloo dee hagaagsan ay waayeen ahla wasahlan laakiin wakaasi mas-uuliyaddu halkaa ma dhaafayso marka halkaa taagan tahay 40 cisho iga soo dhammaadeen jigjigan ka soo baxay ingiriiska yimid waxaan markaa kayskeygii iisii waday iyo aabbahay awbarray tegeen inanka iga axmed buux baa iisii waday qoraalkii aan iswadaagsanaa ku tusi doonaa ayaan tusi doonaa lacagna waa la soo dalbaday ilaa iyo $750 oo maxay tahay $750 niyo how arrintan mar hadday saa u dheerdheero raggiina ay moogtahay ay afmaran yihiin aw barre ayaan ku bixinaynaa wataa caddays taaj lacagtii aan diray igi axmed buux waatan $450 ingiriiska $750 wata xaga ku qoran akhrista caddaystii sagaalaad baa inii haya haddana caddaystii sagaalaad waxa weeyaan maxkamadda awbarre iyo dadka jooga oo dhan iyo saleebaankan xukume ee jigjiga jooga waxaan oo dhan iyo maxkamaddan guud inaan isa rafaco caddaystii waa kan tu sagaala haddana halow fatxi goordhow ayaan soo qaraacay aseexan okay saaxiib bishaaro hawshii waan kaa dhameeyey ilaa 11 iyo barhkii ayaan ku jirnay wax walba waan isla taabanay maame iyo guddoomiyaha waa awbarre hadda oo maxkamaddan lafaciisa hoos timaado guddoomiyaha saleebaanana uu xukumo maame iyo guddoomiyihiiba waxay sugayaan oo keliya warqaddii gobolka aan ka soo qornay berri ayaan kula sinmaynaa aabbo iyo iyaga way noo sheegeen eg waxay ku leeyihin guddoomiyaashii iyo garsoorayaashiiba noo sheegay waxay noo sheegeen in aabbo la dulmay ninkaasina uu meel walba lacag ku bixinayay mar haddii aad keentay warqaddii gobolka annaga ayay naga taqaanaa arrintii dhammaystiran insha allah kii lafaciisa waa la eriyey dhammaan kiiskii uu qaadayna amar ayaa lagu bixiyey in laga noqdo markaa walaal hawshii guul ayay ku dhammaanaysaa aabba caawa farxad ayuu la ilmeeyey berri ayaan ku soo wacaynaa hadda ayaan seexanay $750 waa kaasi waa la qaatay $750 may ku tagtay raggaasi iyo haddana ilan waa ninkan iyaguba caddaynaya meel kastaba lacag buu ku bixiyey haddana layidhi moogtahay warniyo haw waxaan doonaynaa waxaan ku raacaynaa warqaddii hore ee uu ninkaa la eriyey ninkan ay kule kii lafaciisa ayaa la eriyey kiiskii uu qaadayna amar ayaa lagu bixiyey in laga noqdo iyagii kule iyo haddana markii dambe markii $750 aan siiyey ilan waxaa la yidhi qofku kama dhammaado wuxuu barte fadxiga hawshii waa tii warqad maxkamad gobolka la keena la yidhi markii warqaddii aan qornayna ayuu aabba nagu yidhi beerta weli wax xukuna oo ka dhacay inuu jirin saleebaanna wuxuu yidhi oo qora warqad rafacan aabbo ayaa diiday maxkamadda awbarre waxayna hordhigeen warqad xukun ah aabbana uu oggolaaday hadda waa raggii ku lahaa kii lafaciisa waa la eriyey dhammaan kiiskii uu qaadayna amar ayaa lagu bixiyey in laga noqdo iyo kulli haddana kiiskii laga noqday ilan waa lacaga kiiskii kiiskii baa ninkii aan erinay kiiskii uu qaadayna aan loo kala noqonay kiiskii baa haddana cuskanaynaayo lacag keena haddana halkaasay jigjiga meedkiina sita halkaasay taagantay ani halkaa markay taagantaaba ka cadhado yidhi mogtay lacag daban bixinayo ma nin beertiisa 7 sano laga haysto soo caddeeyey meel kasta aan dhigay ninkii aad ku caddaysan leedihiin waan erinay ninkan
محمد عمر محمود حسن نكن لا يراهدو محمد حسن قرصورهن وان إريني go-aankii uu soo saaray wixiinana waxaan ogaanay inuu meel kasta musuq la gaaray go-aankuu bixiyeyna waa laga noqday toddoba boqol iyo konton waan qaadanay aniguna waan ku soo cadiyey hortaba uu soo cadiyey inuu been abuur ahaababa ay ka been abuurteen maxkamadda shareecada soo cadiyey toddoba boqol iyo haddana leedihiin kiiskiisii baa annaka yaa noo yaala meesha lacag kale keena mar dambe lacag iyo waxaan bixin ma jirtay xeerlaaliyaha guud ninkan madaxtooyada fadhiya ee cagjar la yidhaahdo ee iminka xildhibaanka isku soo sharaxay waxaan oo dhan ininkaa ka mas-uula shicigoonana maanta qacantiina ku jirtaa dad cusub dhallinyar cusub oonan afkooga weli xaaran qofku mar hadday xaaraan gasho weligii allihii kama waantoobo weligii allihii kama waantoobo xaaraantaama ku jiri maxkamaddu deegaanka iyo maxkamadda gobolka faafan iyo maxkamadda soomaalida etoobiya ma shaqaynayso ilaa ay raggaa fadhiyaan ilaa ay raggaa mas-uul ka yihiin ani kayskaygi weli uu furan yahay waxaana kusoo gebagabay waqtigii covidkii baa la galay kayskaygiidoo saa u taallo ninkaanu lacaga meelo badan bixiyey musuqa ku bixiyey iyo aabbahay geeriday allah u naxariisto kayskiina sidoo furan tahay anigana insha allah marka covid ka soo baxo fasax galo in jijiga tegi doonaa dowladda cusubna ay dhalato laakiin hadda waa caddayntii tobnaad waxaan hordhigay musuqa dee wax intaa ka badan weli hore maad u aragteen waa maya maanta gacantiina ku jirtaa doorta dhallinyar inama yaryar oo weligeeli iyo gabdho aanay afkooga xaaraan aanay weli gelin oo afar kun iyo shan kun oo doollar 5 kun oo bir baa la siiyay ay ku qanacsan yihiin laakiin nin aan ku qanacsanayn oo xaaraanta iyo wixii imika joogo oo dhan waa baabi'ina anigana markay hata waxayga shakhsigayga hatana de anuu nin baahanahi nin dooda yaqaanaanahay nin maxkamadahanana ka hadhin baanahay ilaa iyo federaal waan haystaa cadeymahay waan haystaa inay iyagu beenaala yihiin waan isla gaadhina haddaanu nool yahay markaan yimaado insha allah laakiin nin kastaba meeshu iska taago nin kastaba intuu hagaajin kara hagaajiyo dowlad deegaanka wabillahi tawfiiq